بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. dhammaan inta muslimiinta ah meel walba oo daafaha caalamka ay ka joogaan, waxaanu taagannahay masjidka majmacul culuum oo dhismahiisu ay ka socoto xaafadda xooloqalka degmada daarisalaam. waadna u jeeddaan inuu socdo shubki. baahida masaajidkana maanta waxay u badan tahay waa shamiindo iyo jaay iyo carramaayo iyo carrakaawo. qof walbana maanta waxaad hormarsata ayaa berri aad helaysaa. ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala: wamaa tuqaddimuu lianfusikum min khayrin, waxaad hormarsataan nafsaddiinna u hormarsataan oo khayr ah, tajiduuhu cindallaahi, ilaahay agtiisa ayaad ka helaysaan. waad u jeeddaan walaalayaal, maanta waxay taagan tahay shubki. waxaa loo baahan yahay maantadan in la helo shamiindo iyo jaay iyo carramaayo iyo carrakaawo, intaba in la helo. qof walbana ha ka qayb qaato dhismaha masjidka, ha ka qayb qaato. sadaqo jaariye ah ayay kuu noqonaysaa. nabigeenna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam: ibnu aadam hadduu dhinto camalkiisi waa go'a ilaa 3 maahine. sadaqadii jaariyadii ahayd ayaa ka mid ah. waa inaad ku darsataa maanta waxaad awooddo. shamiindada aad ku darsataa, oo jaayga aad ku darsataa, oo carrada aad ku darsataa. sadaqo jaariye ayay kuu noqonaysaa. nebigeenna xadiid kale wuxuu ku yidhi: man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljanna. ilaahay dartiisa ciddii u dhistaa guri, waxaa ilaahay u dhisaa guri jannaad. macnaha masjid haddaad u dhista ilaahay dartiisa, waxaa ilaahay kuu dhisaa guri jannaad. lambarrada ayaan sheegi doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo. qof walbo wuxuu awoodo ayuu ku darsanaa. dhismaha masaajidda oo laga qayb galaana waxay ka mid tahay buyuudda ilaahay oo la camiraa. buyuudda ilaahayna waxaa camira dadka mu'miniinta ah ee ilaahay rumeeye iyo maalinta aakhiro. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaalaa: wa axsinuu ina allaaha yuxibbu almuxsiniin. wanaagga sameeya, ilaahay cidda wanaagga samayso waa jecel yahay. dhammaan inta muxsiniinta ah ee meel walba daafaha caalamka ay ka joogaan, waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidka. waxba ha yasin, wax allaala waxaad awoodid ku darso. waxaa ilaahay kuugu siinaa janno, waxaa ilaahay kugu siinaa caafimaad, waxaa ilaahay kugu siinaa cumri dheer, waxaa ilaahay kugu siinaa wax walba oo muraadaad aho kaa cuslaa ayaa ilaahay kuugu sahlaa. ikhwaanii fillaah, waalidka inaad wax ula baxdo, nafsaddaada waxaad u hormarsato, waxaasoo dhan waa khayr. furaha lambarka masaajidka waa 3 eber 5 eber 6 49. waa hormuud FVC Balaas. samteelna waa isla lambarkan 623 eber 5 eber 6 49.
waxaan leenahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ayaga ayaa ka badan masjidkana kaalmo ayuu u baahan yahay buyuudda ilaahay ayuuna ka mid yahay masjidka guryahaasna ummadda gurigaasna buyuuddaasna ilaahay ummaddiisa ayay ka dhaxaysaa almasjidu baytu kulli taqiyin masjidka waa guri qof walba oo taqi ah gurigiisa waaye waa meesha ku cibaado samaysan lahaa waa marka meesha adigoo murugo ku haya markaad soo gasho ay murugaha kaaga feedmaysay halaha yaro aad joogto i'tikaaf haddaad u niyeysato ajirkaaga ilaahay uu ku siinaa walaalayaal waxaan idinkugu baaqaynaa annagoo ah guddiga masjidka annagu camalka aan meesha ka wadno liajlillaahi ayay naga tahay idinkana waxaan idinkugu baaqaynaa inaad jannadan oo nabigeenna uu sheegay man banaa lillaahi masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljanna inaad ka qayb qaadataan kii muraad ka culus yahay meelaha muraadada ilaahay ku sahla ayay ka mid tahay kii ubad la'aan hayso meelaha ilaahay ubadka ilaahay ugu sahla ayay ka mid tahay kii guurka ka culus yahay rag iyo haween meelaha ilaahay ugu sahla ayay ka mid tahay buyuudda ilaahay wa axsinuu ina allaaha yuxibbu almuxsiniin wanaagga sameeya ilaahay dadka wanaagga sameeya waa jecel yahay مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء إلهي سبحانه وتعالى ددك وناقة iyo wadada ilaahay subhanahu wa ta'ala ku bixinaayo maalkooda wuxuu ku tilmaamay sida xabad galeey ah dhashay 7 sabuul halkii sabuulna 100 xabbo ay ku taalo ilaahayna subhanahu wa ta'ala intaas ka badan ayuu siinaa ajirkooda inta ku bixiso wadada ilaahay ku bixiso kaliya ma ahan hal galeey oo 700 oo 7 sabuul dhashay 7daasna 700 ay noqotay kaliya ma ahane wallahu yudaa'ifu liman yashaa ilaahay ruuxu doonana waa u laalaabaa marka acmaasha saalixaadka ah inaan ku dadaalnaa waa munaasab maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala fastabiqul khayraati khayrka u dhaqtama u kala hormara khayrka ayaa ilaahayna leeyahay subxaanahu wa ta'ala waxaan leenahay zaad qaata maanta waa maalin adduunyo waxaa naga horrayso maalin aakhiro oo miisaankaasu lagugu miisaami doono ay ma aragtay inay miisaanka xasanaadka ay cuslaadaan ay kuugu jirto liibaan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala fa ammaa man haqulat mawaasiinuhu fa huwa fii ciishatin raadiyah qofkay cuslaato miisaanyaalkiisa markii la miisaamaayo wax walba oo wanaag aad samayso fii miisaani xasanaatika ayay noqonayaane miisaankaaga hadduu cuslaado nolol fiican oo raaxo leh ayaad ku noolaanaysaa waa janna ayaad helaysaa jiwaarka nebiga ayaad helaysaa sala allahu calayhi wasalam fa ammaa man haqulat mawaasiinuhu fa huwa fii ciishatin raadiyah marka acmaashan aad u jeeddaan waa acmaasha miisaanka cuslaysa ayay ka mid tahay maalinta qiyaamaha walaalayaal xooggaaga ku soo tar masjidka xandhadaada ku soo tar xeeladaada ku soo tar nin walba aad gaarsiin karto oo muxsin ah rag iyo haween wuxuu yahayba gaarsii waxaan u baahannahay keliya ma ahan lacag keligeede nin allaale ninkaad khayr ku tuhmayso inaad aad tidhaahdo ka soo qayb qaada masjidka dhismadiisa keliya ma ahan inaad cod keliya aad masjidka ku kaalmaysee duubistaan hadda la duubaya keliya ayaad ma aragtay meel walba aad gaarsiin kartaa si ay u gaarto qof wanaag ka shaqaynaayo amba codkiisa ha ku kaalmeeyee nin aanan ka warqabin
inuu u gaarsiiyo oo yidhaahdo war meeshaas masjidkaas ku yaallo dhismo ayaa ka socotee shamiindada geey oo carrada geey oo jaayga geey in maaragtay meeshaasu ay adigana ajir aad ka hesho marka furaha lambarka waa 3 eber 5 eber 6 49 waa hormuudka samteelka ama dahabshiil samteelka asna waxaa waaye isla lambarkan 623 eber 5 eber 6 49 akoonka waa asna 37 25 2 eber eber 2 waa akoonka marka ikhwaani fillaahi waxaan idinkugu baaqaynaa inaad ka qayb qaadataan dhismaha masjidka fajazaakumullahu khayran waxaa i garab taagan guddiga masjidka ayagaasaa codkooda ku biirin doona meeshaan mare ayayna mari doonaan waxaana rajaynaynaa inaad dalabkan oo khayrka idinkugu jiro inaad ajiibtaan oo qof walba oo khayr aad ku tuhmaysaanna aad u jeedisaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته